halkeed higso isleedahay ama se halkeed higsanaysa mustaqbalka waxa tahay tiktokerad waxa tahay youtuberad baa hadda soo gashay halkeed higsanaysa qof fanaana ma guursaneed astaghfirullah maxaase ku nacaysa inaad guursato intaan gooriya haykayhiyooda kam imaayo dawaanka gashabino laga kuwaybaa gacanooy arlibaa xokogu xibaanu galeediyo cidi robki galabta da'ay gargariirayay geedka mahaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mar kale iyo barnaamij gaara oon ka diyaarin doono mid ka mid ah suxufiyiinta Damaashaad Media oo halkan isla studio Damaashaad Media aan ku qabanay waa Nasro Nalka oo hore ugu taqaaneen inay TikToker ahayd TikTokerkii intay ka tagtay bay YouTube bilowday soo dhaw fandheehay waxa salaamay asxaabada dhammaan meel kasta ay kaga sameeyeen dowladda Afeega waa joogaa meesha laga waraa ku soo dhaw bishay fandheehay asxaabada waa salaamay Nasro ugu horeyn asxaabta hadda isbarto magacaaga iyo halkaad ku dhalatay magacayga waa Nasro Nuraadan waxa ku dhashay magaalada Gibiley waxa ka dhex muuqda magaalada Gibiley waxa inta ku leeyahay magaalada Gibiley waxa tahay TikToker goormad bilowday TikTokta inaad page TikTok yeelato 2016 baraast bilaabinaan sharka keena meesha kuma badnilay waxa caqabada oo la kulantay inta TikTokta aad ku dhajtay ma jirto guuleynta la laga bad ka gaadhay page-ga TikTokta astaghfirullah guuleyn ka gaadhay arsiina laakiin insha Allah hadda waxaad ku guda jirtaa inaad TikTok ka timaado dhinaci YouTube ka timaado inaad YouTube ka timaado yaa kugu dhiirigeliyay marka hore wallahi walaal halkan iga qiimo badan Nasir Gibilaawi qofkii keenada kaamirada iga soo hormuuqsiyay aan meeshiisa ka soo dhex muuqday markii ugu horeysay YouTube marka isbarbar dhigto YouTube iyo TikTok waxa farqi u dhaxaya ma caqabadaha la oran karo caqabadaas ay jirta waxa kamid ah wallahi kulay waa wada shuri midiyo caqabadii steelin ma jirto halkeed higso isleedahay ama se halkeed higsanaysa mustaqbalka waxa tahay TikTokerad waxa tahay YouTuberad baa hadda soo gashay halkeed higsanaysa xarijiinaya kulay TikTok ana hada saasooyin kamalihi oo dhex jooga ma hane insha Allah xarijiinaya tiim sadxaajiyo meelaas ila ka soo muuqan doona insha Allah sidoo kale TikTokta iyo YouTube-ka kuma eekid ilaa meel kale aad ku jirtaayo waxa kamid tahay xubnaha kooxda Gibiley Band oo ah koox dhaqan dhaqanka laftiisa xataa yaa kugu dhiirigeliyay inaad xaga dhaqankii xaga tagto wallahi horta dhaqanku aan waxaas oran karaa waa hawo mar soo martay dhaqan xataa dhaanta ma dhageysan jirin oo dhaantooyinkii xasiisiya maxay waxaan arkay inuu dhaqanka dhex jooga isla hadda kooxdii markaas dhaqanku bilaabay wuu joogaa nisma oran karo qofka sabay keenay dhaqan hawo mar soo martay baheed waan tagi insha Allah waan ku sii jiri doona waan ku jira dhinaca dhaqanka ku dhex jirta dhinacana waxa jira caqabado badan caqabadaha ugu waaweyn inta dhinaca ku jirtay aad la kulantay ama aad soo martay maxaa kamid ah horta kulli caqabado badan dhaqanku iskileeyahay laakiin anu caqabada ugu xuneen kala soo kulmay waxa tahay hooyooyinka waaweyn tiin meeladan Allah oo aan ka bayno walaal wadwad leeyahay dhaxas laakiin waxa caqabada weyn kala ma soo kulmay dhinaca dhaqanka marka la eego halkii ka gaar baa isleedahay mustaqbalka macallimid weyn inuu noqdo dhaqan ana la soo firi jiray dadkeena afraad gaar ma laga yaabaa inaad dhinaca fanaaniinta ku dambayso hadhow Nasro fanaanada aan aragno ma jecli fanaanada inaan noqdo kelmada kaftanaada ku weydiiyo qof fanaana ma guursaneed astaghfirullah maxaase ku nacaysa inaad guursato ana horta qof masaar wada baanin waxaad ku nacaysa sababtu waa fanaan guursado maya ugu jiri
صوت لكن ما نوشي يعني من كل ميل تجي كل ميل هيك سقالة كل بدل تجي كل بناقش ما يا والله بكتير رارك يجي شغال رارك موضوع لين فنكو حد واشقي ولا عق شغال هذا فنقشة يو استودي ماس بكتير يعني نكسر قدام بنتي يلا هنك سلام يسا والله تبغى ما سلام يا هل كان أصحابتي لدمين كذا كود سلام يا والله خليه يجرو جوجين في لولو لجرت ما سنتسر نلك صحفيات تعانك ريد مسد ميديا وهل كان مرتنا واحد أقرأت الكلمة صارت تنقاريه